xildhibaanada golaha deegaanka gudoomiyaha boorka jaamacadda gudoomiyaha hore Barsaab Xasan Xabiib abwaanada Cabdi Cali Xirsi iyo Baas aqoonyahanka kale jooga maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Timacadde iyo ardayda iyo marti sharafta kala duwan bahda saxaafadda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dabcan farxad bay noo tahay inaan ka soo qayb galno kulanka qiimaha badan leh ee isugu jira barnaamijyada badan hadday tahay bandhig suugaaneedka iyo hadday tahay arrimaha kale entertainmentka ay jaamacaddu soo bandhigaysay runtii aad baan ugu mahad celinaynaa abwaanada bandhigan lafdhabarta u ah oo hanti reegabil ay leeyihiin oo soo saaray abwaano badan oo maanta qaranka Soomaaliland iyo guud ahaan dalalka Soomaaliyeedba caanka oo inagala joogo Farxaan ilaahay cimrigooda ha raajiyo macallimiinta qaaliga Cabdiraxmaan iyo Cabdi labadoodaba runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dhalinyarta kale ee halkan midhaha qiimaha badan la ka tirinayay iyagana runtii way soo dhaweynaynaa kulan aanu wada yeelanay Timacadde Readers Club intaanan xafladda iman waxyaalaha ay ka hadlayeen bay arrintan runtii ka mid tahay oo jecelahay maadaama ay fursad u heleen maamulkii Timacadde Readers Club inay halkan ka hadlaan inaan ugu bulshaareeyo daayartan in dhawaan loo qaban doono tartan suugaaneed oo qabanaya Timacadde Readers Club oo ay kala saari doonaan labada macallin ee runtii lafdhabarta waa abwaanada waxaan rajaynayaa inuu tartankaa ka soo bixi doono tartankii ku xigay waxaan filayaa inuu ahaa kii uu Farxaan ka soo baxay iyo Cawaale Deeqsiin markaa raggaa la midka ahaa inuu halkan runtii inay ka soo baxaan rajaynaa aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa arrinta qoran idinku dardaaraya waxa weeye kelmadda waa baan ku hadlay Cabdi Cali dhageysiga aad baa la inuu xantaa inaynu ku xunnahay ama Timacadde Readers Club ha noqdo dadku waxa weeye in lala hadlo oo wax loo sheego bay u baahan inta badan ama abwaan hayna la hadlo ama aqoonyahan hayna la hadlo ama siyaasi hayna la hadlo ama sheekh hayna la hadlo hase yeeshee haddii wixii hadal ama lagu soo xisaabtami lahaa ama layna odhan lahaa inaan weeleynin oo qofkii hadlayay uu arkayo inuu hadalkiisii uu meel bannaan ku dhacayo kuma dhiiranayo inuu hadlo abwaanka maanta doonaya inaynu rabno inuu soo baxo oo abwaanada la tartamo wuxuu u baahan yahay bulsho dhagaysato nuxurkan iyo waxaan uu ka hadlayo inta qaadato ku dhaqanta aad baanu dhalinyaraha runtii aanu idinku codsanahay in arrintaasi xoojisaan oo aan marka haddii ay isku mid noqoto marka suuqa lala hadlayo dadweynaha marka jaamacadaha lala hadlayo labadiiba hadday dadkeena isu mid noqdaan mushkilad soo noqon mayso runtii inaynu ka duwanaano weliba marka meelaha aqoonta la jooga bayna aad iyo aad isugu dardaaranaa jaamacadda Timacadde runtii aad baan ugu mahad celinaynaa maamulkeeda iyo xubnaha boorkaaba fursadaha aynu gobol ahaan helay bay ka mid tahay jaamacadda inaynu xoojinaana aad bay daruuri u tahay anigu waxaan ka mid ahay dadka nasiibka oo helay inay jaamacadda runtii ka faa'iidaystaan Gebile baan ulada ka galay eerka Gebile baan kaga baxay secondary-ga Gebile baan ka galay ilaahay wuxuu igu simay haddana inaan jaamacaddii first degree inaan halkan ka qaato imikana waxaan jaaris u helay inaan mastertii ka galay isla jaamacaddii Timacadde intaasiba waxa weeye runtii waa waxaynu dheernahay gobollada kale dadkii aasaasay iyo dadka gacanta ku hayaba waynu u ducaynaynaa kelmadda aynu isku dardaaranaa waxa weeye waxa aynu ugu adag inta badan waxyaalaha aynu wada leenahay ilaashigiisa waxyaalaha gaarka loo leeyahay baynu ka doorbidana wixii aynu wada lahayn waxaan aad iyo aad runtii jecelahay inaan cod dheer aanu ugu sheegno dadweynaha hadday reer Gebile yihiin khaasatan qurba joogga iyo qolqol jooggaba inaynu waxyaalahan wada leenahay dal ahaan iyo gobol ahaanba aynu xil gaar ah iska saarno
waayo waxa la wada leeyahay waa wax loo sameeyay jaamacadda Timcadda waxay ka mid tahay hantida aynu gobol ahaan wada leenahay sidaa daraaddeed waa inay inooga duwanaato meelaha gaarka loo leeyahay hal qof baa iska leh dantiisa gaarka ah ku fushanaya ama ha ka taajiro ama magaca ka doono laakiin meelaha la wada leeyahay waxa loo baahan yahay in dan guud oo la wadaaga ay ka soo baxdo sidaas ay ugu dhiiranayeen dadkii furayay oo caaway nagala joogo Mastar Xabiib oo runtii aynu aad iyo aad isaga iyo doctorkii iyo intii aynu halkaa u hayno hadday iyagu inoo fureen innaga maxay nagu waajibaan yaa ilaalinteeda iyo horumarinteeda iyo korsiiqaadkeeda intaasi inta ugu yaraynu kaga qayb gali karnaa waxa weeye inaynu ka mid noqono dadka wax ka baranaya ila jaamacadda hadii laba gali waayo ma shaqeynaysaa jaamacadda waa inaynu galno oo aynu ka faa'iideysano oo waqtiyada qaar dalkan markii waxa weeye ninka maanta aynu dooranay ilaahay waxa weeye xilka ku asturay Muuse Biixi Cabdi Mareykanka markuu ka yimid oo qoriga qaadanayo duurka galay maxaa ugu jiray ila waa la isweydiinay aayaduhu qaarna waa aayado kooniya oo waxa adduunyada ka dhacaya la doonayo inaad ku cibro qaadato waxna waa waxa ilaahay quraanka kariimkiisa uu inoo sheegay kitaabka ku qoran aayadaha kooniga bay ka mid tahay ma aha inaynu tii asxaabtuna aayado u aragno waxaan hadda nolosha socda waa inay cibro ku noqdaan Muuse markuu ka imanayay Mareykan uu qoriga qaadanayay wuxuu u socday waa inay deys weydiino iyo ragii la midka ah waxay u socdeen xornimadan imika inaynu helno isaga shakhsiyan Mareykan baa u joogay oo maanta aynu nafayna ugu qorno Sooma Mareykan oo inuu bad u marano ayaa uu isagu joogay markii tiisa laga hadlay laakiin wuxuu u imanayay oo qoriga u qaadanayay inay dadkan xorriyad helaan oo ay nabad helaan oo waxa ay doonayaan ay helaan meel ay xor u yihiin isu maamuli karaan marihii bay tani ka mid tahay haddaba markuu nini god u galay inaad xorriyad hesho haddaad adiguna ka masuugto wixii dhiigga loo daadiyey inaad ugu yaraan waqti yar siiso maana in casrimayn ugu noqonayn jaamacaddan aynu joogno waa inaad ka fikirto inanka yare ama inanta dhabarkaaga ku jirtaa inay ka faa'iideysan doonto si inanka ama inantaa dhabarka ku jirta ee aad adigu dhali doonto insha Allah ama kuwa kula dhashay uga faa'iideystaan waa inaad adigu wax ka tagtaade haddii ay sababasa inaad jaamacadda Hargeysa ka tanaasusho ama tacdiis si ilmaha yare dhabarkaaga ku jira oo jaamacad tayada deegaankiisa ugu helo soo inaad yeesho maaha miyaanay ahayn taasa la inooga baahan yahay marka waxa weeye dareen iyo aragti fog waxaad moodaa inaynu meelo yaroo soko runtii waqtigii inooga lumayo qabyaalad ree hebel dacaayad meesha sidana waxaasi noloshu maaha reality baynu u baahanahay xaqiiq in laga wada hadlo oo mustaqbalka muraayadda horteeda inaanan eegin muraayadda dabadeeda inaynu eegno oo aad kula dhashay iyo ka dhali doonto mustaqbalkooda ka fikirto haddii magaaladan Gabiley waqtiyada qaar daasad ugu fadhiisan jiray oo aad u nasiib u heshay inaad fasal qurux badan aad uuladii ku dhigato oo ilaa jaamacad kursi qurux badan iyo projector wax lagu dhigayo aad nasiib u heshay ma inaad lumisaa mise waa inaad sii ilaaliso Sooma inaad ka fikirto kaad adigu dhali doontaa inuu ay baad wax ku bartade ma inaynu daasadii ku celinaaba markaas uu ay baad ama wax ka sii sareeyo wax ugu barto waa inaad adigu diyaarisatay marka waxa weey runtii waxaynu u baahanahay inaynu aragti fog runtii yeelano waxaan yareeyay meelahan aynu la fadhinayna ma anfacaya gidaar walba dhalinyartii iyo mustaqbalkii dadkan aynu nahay oo aad tihiin adigoo jaamacad dhiganaya baa 3 saacadood wax kaaga lumaya
inaad kolba labis xidhato qaar baan arkay jaamiciyiin oo inta gaari qaataan magaalada koornaheega u baxaya oo salaada casar ilaa maghrib kolba sawir gelaysa ay Facebook u soo dhigaan waa ka fikirka Facebook sameeyay inaad noqoto oo program karo magaca la sameysade Soomaa ha ka fikirin inaad sawir u gasho ha ka fikirin inaad saaxiibkaaga caayayso ha ka fikirin ka halkan marayo inaad labiskiisa eegto waxaan u baahanahay inaan nolosha xaqiiq ka sheegno oo aynu sida adduunka looga fikirayo inaguna u fikirno ma oran karno inanka yara gaalka waa gaal inanka yara sameeyay Facebook ilaahay garabkiisiiba ma haysto waa gaal adiguna waxaad jaaris u haysataa ilaahay adduunkan ba abuuray inaad salaatuleyl u tukato waxaad doonaysaa intuu kuu fudaydayo aad halkaa ka qaadato de marka inagoo noocaas inaynu kaa magan bidno waynu nacasno walaal aynu maskaxda ka faa'iideyno oo aynu cududeena waqtigeena nasiibkeena dhalinyartii dalkan soo martay fursadaha helin baynu haysanaa waqtiyada qaar marka taariikhdu dib ugu noqoto qolob gumaysigii bay kaga hagaagtay inay la dagaalamaan noloshoodii ay mustaqbalkooda dhisi lahaayeen qolob waxay kaga hagaagtay siyaad bare qolob waxay kaga hagaagtay sidii dalkan dayday iyo burburkii iyo markii dalkan dib loo dhisay ay mustaqbalkooda kaga hagaagay qaabiyaashii ka mid yihiin adiga ilaahay wuxuu kugu soo hagaajiyay meel aan hoo cun oo cabligu leeyahay oo dad buugii ka fikiray oo dad waxa weeye waxbarasho ka fikiray oo dad macallin xun arkay da adigoo noocaas miyay tahay inuu ninkaasi naga taariikh sareeyade weli ma hayno de tima cadee nin halkiisii gaadho ma hayno laakiin soo ma hayn ilaa inaga ka chance badanay weli nin booba gaadho maynu haynaa oo qoraaya ma hayno inaga ka chance badnayn marka waxaynu u baahanahay walaal aad iyo aad baa runtii in inagoo baylahdaas hawshaasi noo taalo in la inagala hadlo wax dhageysta waynu ugu ceebweeyey oo abwaanadii ina wacdii lahaa ay inaga baryaan na dhageysta ceeb bay nagu tahay anigoo hadalka runtii soo koobaya oo idinka raali gelinaya wixii gafa ay afkayga ka soo baxay wuxuun bay iga tahay baraarujin oo waqtigu waa qaaliya inaanu inaga lumi khasaare halgan baa inoo yaala mid adduun iyo mid aakhiraba aakhirana inaynu janno tagno inuu u baahannahay adduunyadana inaynu sharaf iyo cis ku noolaano inuu u baahannahay markaa taa diyaarinteedii iyadoo inoo taalo ma aha inaynu isdhagaysta dee waqtigu inaga lumo aad iyo aad baad u mahadsantihiin jaamacadda timacadda runtii iyo maamulkeedii macallimiinta oo mahad celinayna dadkii barnaamijka soo diyaariyay intii ka qayb gashay